السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبرنامجكي aan uga hadlaynay waayahan dambe dulmiga iyo dhibaatooyinka ka soo cusboonaaday gobolka Gada gaar ahaan magaalada Balad Xaawo. waxaan rabaa inaan shacabka u bidhaamiyo nidaamka qabqablaha iyo ninka dagaal oogaha ah systemkiisa iyo systemka dawladeed inaan shacabka u bidhaamiyo maadaama dad badan oo Soomaaliyeed meesha dago ay ku wareersan yihiin dawladnimada iyo waxyaalihii hore soo arki jireen oo xilligii dawladda Soomaaliya ay burburtay ilaa maanta waxyaabihii ay arki jireen iyo waxa maanta meesha ay joogaan farqiga u dhaxeeya inaan u kala bayaaniyo. saad ogsoontihiin baa waxaa jira wax la yiraahdo qabqable systemkiisa ku shaqeysto oo ciidamo abuurto oo ciidamo iska leh sidaasna dadka ku maamulo iyo nidaam dawli ah oo system dawli ah ku shaqeeyo ayaa kala jira. nidaamka qabqablanimada waxaan filayaa waxaad ku tihiin experience ay dhammaantiin ku tihiin oo waad garanaysaan qabqable iyo nidaamkiisa wax hadda la idin kaga sheekeenayo maahan. dad badan baa marka waxa ayna garanaynin nidaamka dawladnimada systemka dawladnimada walaalayaal waxa weeye waa dad isu tagay oo nidaam sameystay way dawlad hadaad maqashid dad nidaam iyo system uu kala hagayo way. dawladdu marka waxay leedahay meel loogu soo hagaago meel hadii ay kugu xadgudubto aad ka dacwoon kartid ninka gudoomiyaha hadii kugu soo xadgudbo aad u dacwoon kartid ciidanka hadii kugu xadgudbaan aad u dacwoon kartid nidaam noocaas ayaa jira. sida awgeed hantida qofka shacabka uu leeyahay ma noqon karto hanti caam ah hadii aan la helin nidaam qeexaya oo kala saarayo hantida shakhsiga iyo hantida caamka ah. dad badan ayaa waxay markii aan fiidiyoga hore ka hadlay ayaa waxay soo post gareeyeen oo soo direen qodob kamid ah dastuurka dawladda Soomaaliyeed oo oranayo dawladdu waxay qasab ku qaadan kartaa hantida shacabka ayadoo hantidaas ka bixinayso magdhow. qodobkaas ayaa waxa laga yaabaa nimankan hadda maamulka Balad Xaawo joogo inay cuskanayaan laakiin waxaan in leeyahay qodobkaas ma idin fahmin waa qodob micno ballaaran xambaarsan. waa goorma marka dawladdu ay qaadan karto hantida shacabka maxay tahay nidaamka ay ku qaadanayso hantida shacabka. dawladda hantida shacabka waxay ku qaadan kartaa in ay u reebto documenti inay u reebto qoraal. tusaale yar hadaan idin siiyo dawladda hadda waxay ku jirtaa dagaal halgan bay ku jirtaa ciidamada gurmadka ah hadii ay markaa waayaan ciidan dawladeed baabuur dawladeed oo ay gurmadkaas ku qaataan waxay isticmaali karaan oo si qasab ku qaadan karaan gawaarida shacabka u leeyahay. laakiin gawaaridaas shacabka u leeyahay qaadanayaan waxay u reebayaan report documenti bay u reebayaan qofkii iska lahaa hantidaas. qofkaas marka hantida leh wuxuu u raadsanayaa hantidiisa haday burburto ama ay dhunto dawladda ayuu ku leeyahay dawladda magdhow siinayso qofkaas. waxaan rabaa marka shacabka reer Balad Xaawo inaan u sheego maamulka maanta inta dadka soo qalday isugu keenay garoonka oo yiri hal qardeeyo wax documenti dadka dhulka iska lahaa may u reebeen uma aysan reebin mana ayna tira koobin wax ay ka og yihiin ma lahan. marka waa dhac iyo khayaano iyo boob cad weeyaan iyo report qaldan oo dawladda loo gudbinayo. waxaan rabnaa marka inaan u sheegno dadka shacabka reer Balad Xaawo ee dhulka iska leh ha quusanina. dawladdu waxay leedahay nidaam ciidanka dawladana lidinkuma hujuumi karo lidinkuma xoog sheegan karo. waan la socdaa dad badan inay hoos fiirinayaan oo waarag hoos ay linta ka qubayaan dhulkoodina ay u maaro waayeen oo xoog loo sheegtay. dadka ayaga waxaan leeyahay kula dardaarmayaa
in aysan quusanin dukumiintiyadooda ay diyaarsadaan maxkamad ay la aadaan garoonkaasna aan la dhisi karin ilaa maxkamadaasi ay fasaxdo maahane aan la dhisi karin waxna laga qaban karin maxaa yeelay qofna laguma dhici karo magac dawladeed shaati dawladeed qofna laguma dhici karo dawladana hantida shacabka ma qaadan karto haddii aysan systemka aan sheegayay ayna soo marin waxaan raadinaynay oon intaas u soo halgamaynay inaan helno cadaalad inaan helno kala dambeyn iyo nidaam laakiin maanta in la isugu xog sheegto ama la isku maaragtay ama la isku dhaco ciidamada qaranka Soomaaliyeed oo naloo soo adeegsado dad maamul barad ah oo maamulkii aan waxba ka aqoonin iyo nidaamkii systemkii dawladeed baan garanayn in naloo soo adeegsado runtii aad baan uga xunahay wax indhaha laga qabsan karana maahan fariimaha naguna waa istaba joog kana aamusimayno ilaa aan ka helayno jawaab rasmi oo na qanciso waxaan marka u sheegayaa shacabka reer balad xaawo laguma aqoonin inay isku raacaan shay dulmi ah laguma aqoonin inay agoon dulmiyaan laguma aqoonin dad xuquuqdood inay ku tuntaan waxaa lagu tiriyaa dad diinta tixgeliya inay yihiin dad darisnimada tixgeliya inay yihiin dad maaragtay la yaqaano inay yihiin marka waxaan oran lahaa odayaasha iyo dadka waxgaradka meesha joogo waxay isku wada raaceen inay garoon u baahan yihiin garoon diyaaradeed inay u baahan yihiin sax waa loo baahan yahay garoon diyaaradeed in laga sameeyo balad xaawo laakiin steepka loo maray ayaa wuxuu yahay steep qaldan nidaam qaldan ayaa loo maray inaad tukato waxa ka horeeyo inaad weyse qabto inaad weyse qabtana waxa ka horeeyo inaad daahirtood soo istijooto sida awgeed garoon in la dhiso waa sax cid kastana way taageeraysaa cid diidi kartana ma lahan laakiin maxaa ka horeeyo xuquuqda dadka agoonta dhulkaas iska leh masaakiinta dhulka iska leh in meel la saaraa ka horeyso waxba indhaayaan la istirin cidna cid kama xoog badna cidna cid ma hujuumi karto waxa weeyaan dhulka dad baa iska leh hantidoodii oo dhan bay gashadeen waa in dadka hantidooda meel loo saaro haddii aad isleedihiin si sahal aad ku dhisaysaan si sahal ayaad ku dhisaysaan waxa weeyaan dawlad iyo waxa sabood baad haysataan aad isleedihiin waxa weeyaan dadku waa is yaqaan arinta ayada waxaan dhihi lahaa in laga dhowrsado oo nidaamka dib loo habeeyo systemka dib loo saxo oo markaasi dadka ayagoo wada qanacsan oo ku faraxsan arinta in marka garoonkii la wada dhisto laablaka baa iga muuqda meesha iyo maaragtay suxul duub iyo maaragtay wax aan ku dhisnayn xaqiiqada looma baahna fudaydka qaarkii waxa la rabaa wax walba in laga fiirsado waxaan maxay faa'iido noo leeyihiin maxay khasaaro noo leeyihiin dulmi looma baahno ilaahayna ma jeclo adoomadiisana inay is dulmiyaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala ma jeclo waxaan markay idin sheegayaa dadka maamulka gobolka Gadow iyo dhammaan dawladda Soomaaliyeed buu u sheegayaa meeshaasi inuu dulmi ka soo daahiray dulmigaasna loo baahan yahay in dib loo saxo dib in loo saxo in loo baahan yahay waxaan rabaa fariintaydan gaaban dadka waa in loo sheegaa xaqa ay leeyihiin oo dawladda ay ku leeyihiin dawladduna waa inay ogaato xaqa ay shacabkooda ku leeyihiin waa laba xuquuq walba waxay wadataa nidaam iyo system ayay wadataa dawladdu waxa shacabku ku leeyahay wax hadda halkan aan ku soo gabagabeyn karo ma ahan waa aad bay u fara badan tahay aanoo dib ka faahfaahin doono marka dadku waa inay fahmaan dawladdu xaq ay ku leeyihiin dawladdu ma hujuumi karto shacabkeeda oo dad shacabkeeda ma maaragtay xoogi karto mana dhici karto askariga kuma xadgudbi karo shacabka gudoomiyaha shacabkiisa kuma xadgudbi karo waxayna rabina ma marsiin karo shacabkuna waa inay gartaan xaqa ay leeyihiin xaqooda markay gartaan ayay u hadli karaan xaqooda raadin karaana
laakiin garoon baa laydin dhisayaa kalimatul xaq yuraadu biha albaatil way waa eray xaq ah laakiin si qaldan loo maaraynayo oo baatil ah way xuquuq agoon baa meesha ku jirta xuquuq dad masaakiin ah dhulka ku jira dadkaas waa in la qanciyo lala fariisto la tirikoobo xaqa ay leeyihiin la siiyo markaas garoonka oo xalaal ah ayaan u wada baahannahay dhamaanteen waa loo wada baahan yahay qofkii asaga si gooni ah hantidiisa u sadaqaysanayo cid hor istaagaysa malaha xor buu u yahay qofkii xooggiisa wax ku dhisayo oo xooggiisa sadaqaysanayo xor buu u yahay qofkii soo taagan oo leh hantidaydii baan rabaa adeer cid hor istaagi karta malahan haddii qofkaas sidaa lagu dulmiyana dacwatul madluum mustajaab ayuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam qofkaasi waa qof la dulmiyay waxa weeyaan dulmi uma baahnin xilligan la jooga maanta dulmi kale oo dad laga galo uma baahnin waxaan u baahanahay inaan gacmaha is qabsano dad walaalo aan noqono cuqdadii iyo wixii intaas oo sano la isku soo leynayay meesha laga saaro shacabku uu noqdo shacab walaalo ah dawlad helay dawladooda ay maaragtay garbaha qabsadaan laakiin ma ahan iideh iyo maxay ahaydeen orodka maaragtay la muujinayo iyo suxul duubka iyo war xoolaha agoonta u xoog badan idina xoolaha masaakiinta u xoog badan idina maad nidaam keentaan dadka lagu qanciyo runtii waxaan dareemayaa meeshaas maamul aad u liito inuu ka jiro inkastoo dawladuna ay ku meel gaar ku magacawday laakiin dawladda waxaanu ka codsanaynaa in ay nala soo gaaraan maamulka ay noogu talagaleen oo xilli kale iyo waqti kale aysan nala sugin maamulkii ay gobolka Gado ugu talagashay inay la soo gaaraan ayaan dawladda ka codsanaynaa aad baad u mahadsantihiin wabillahi tawfiiq. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.